Ayoonta iyo horyaalminta ku dhaqan kaamka barakacayaasha kalkaaltu ee degmada Buurtile ayaa waxaa la soo daristay xaalad nololeed oo aad u liidata waxayna ka codsanayaan ummadda islaamka inay soo caawiyaan maadaama lagu guda jiro bishii barakeysneed ee Ramadaan xilli ay la hadleen warbaahinta SBC oo ku booqatay goobaha ay kaga nool yihiin barakacayaasha dadkan ayaa dhammaantood haysan hoy iyo waxay ku afuraan toona kaamkaan baan ugu suganna xanuunka hayana waa neef wax weeye si u dhashay sidaas iska yahay ilaahay baa garanaya dadka ku daawanaya oo muslimiinta ah maadaama lagu jiro bishii barakeysneed ee Ramadaan waxa ka aysanaysaa ilaahay wuxuu nooga soo qaadaa ka codsanayna hadda ka hor wiilka ma la geeyay dhaqaatiir caalami ah way wax bilan dhaafsiisan lama geeyin waxa ku sheegay markaa neef ay dhahaan midka u geena wuxuu dhaa neef haya oyaanima ay haysa ummadda islaamka ah ka daawanaysa TV-ga caalamiga SBC maxaa u diraysaa oo baaqa inay wax ii caawiyaan wax walba ii qabtaan oo macnaha waxaan u baahanahay ii keenaan baa qabaa aan hooyo iyo aabba lahayn iyo dad u shaqeeyo macnaha wax u keena walaashi Fatima Abdinaag maahan oo waxaan ka helay aan la arag guri ka helin musqul ka helin raashin ka helin dhar ka helin maacuun ka helin 15 xabo oo biskud dhiiqa ban meel loo wada wax kale aan ka helay male riyaan baanahay wiil malihi gabdha hal gabaraan leeyahay wax cadaalad darro la igu sameeyaa waxba la igama taro halkaas aan yuuraa ana qofkii ka dhamaahi oo dacwoon ka dhah oo meelaha tagtagi ka dhah halka markay warqad la iga qorna warqada waa la iga diidaa ma garad marka waxaan ka cabanayaa dhibaatada noocaas aan ka cabanayaa tabarna ma hayo dadna saasaan ka ahay duunyana malihi ma garanaysaa wixii islaama oo wax garada oo waxaya oo wax laga helayo inay wax noo soo dhiibaan oo wax la siiyaan oo na gargaaraan oo guriga aan ka helo oo aan ka helo musqul oo aan ka helo muxuu ahaay daryeel baan u baahna waxa ku haysanaa ma jiro beel aan lahayn oo banaan oo guriysi oo daraar walba dhaafal lana leeyahay joognaa ee wax tariyo wax tabaalaan u baahanahay walaalayaal dad wax noo qabanaysan dad waxaan nahay wadan ka yimid bal meel idin dhaanta tagaanu lahayn de waxna ma hayno waxaad noo tari kartaan inaad noo tartaan baan rabnaa maxaa ka codsanaysaa ummadda islaamka ay ku daawanayso ummadda islaamka waxaan ka codsanaynaa waxaan u baahnay ma jiro waxaan wax walba aan u baahanahay kolka u horeysa meel aan fadhiisanaba ma haysano marka xiga wax weeye waxaan haynaa ma jiro Ethiopian ka nimid wadan gumaysiyaanu ka nimid bal wadan idin dhaamo tagaanu lahayn hadda wax nagu tarana ma hayno oo wax nagu qabta intee way ciyaarkaaga wanta waxa weeye 8 ilmood kan cunugan kila naafaka miya wadnaha calal tiradii loo geeyna waa laga dayrinayaa waxa ka qabtana waa la waa ilaah mooye aadna waxa ka qabi waa wax caafimaad ayaa ma jiro aad bi xaaladdu adag tahay istaag iyo baabuur baalxumo kii curyaanka oo loo ciyaar ku dilan jiray يا من مرعيال كجودين جيت كي كانان جيت كان غوريا waan daawanaya wixii islaam oo muslim oo iga naxaya inay waxay qabtaan kulay hoy ii sameeyaan hoy angala kulay ii sameeyaan waxay qabtaan Carruurta agoonta ah ee ku dhaqan degmada Buurtile ee gobolka Nugaal ayaa inta badan laga eedin gudaha degmada Buurtile waxayna ka dhulsugayaan walaalahooda muslimiinta ah xilli ay carruurta kale ee la wadaagayaan farxadda ciida waalidkood agoonta ku dhaqan degmada Buurtile ee gobolka Nugaal ayaa waxay yihiin kuwa aan alna u qaneen cidna u maqneen Mawlid Maxamed Kooshi warbaahinta SBC degmada Buurtile